dalkana nabadiisa inaan wada ilaalino waa waajib in nabadda la isku tuurtuuro oo laga dhigo sheeko la isku haysto looma baahno nabaddu waa waxa bini'aadamku ku nool yahay haddayna nabadi jirin xitaa salaada ma tukan karaysa cibaadada xitaa khalkhal baad ku jiraysaa nabaddu markaa waa furaha nolosha jaamacadi ma jirteen waxba ma jireen waxaan idin xasuusinayaa 19 baa guddi anigu jeermaan mar aan ahaa gobolkan maamuleynay waxaanu ka shaqayn jirnay iskuulada jira in jiingada laga goosto ayaanu ilaalin jirnay reeboorama cidi lama joogin iyo ka jiingada ka goosanay kuwaasan ka ilaalinaynay oon cashuur yar dawladda hoose ku samaynay oo aan siin jirnay markaasi gunno lagu ilaaliyo waashimaanada dhakhtarka jeelka meelahaas oo dhan waqti baa la soo maray awdal iyo Soomaaliland guud ahaanba meel fiican bay maraysaa laakiin inta la socdo taariikhda turaanturro lama waayo dhacdooyinkuna waa wax caadi oo bini'aadanka la socda markastaba waxba dhacaya waxa dhacaya sida xal loogu raadinayo ayuunbaa meesha yaalay wax kale oo yaali ma jiro maxay halkaa wax uga dhaceen iyo maxay waxaan inay hagaagaan nin kasta oo jecel waxa la yiraahdaa ninka arigiisa bahal ku jiro ayaan dareemo yaane orod dareeno lama yiraahdo waxaan aaminsanahay in loo dadaalayo dadka oo boqol ergal loo diray Soomaaliland isku tagtay ilaahay waxaan ka barayaa inuu nabad ku soo dabaalo aqligana ilaahay u soo celiyo dadka walaalaheena bariga dagaalku ka socoyo oo ka dhaxeeyo wadad walaala ah wada dega abti ilma abti iyo waxa isku ah Soomaalidu mushkiladeedu waxa weeyaan abtirsiin wax la yiraahdo ayaa siiyay qaar baa dilay abtigi ila abtigi dilayo waa qabiil kale qabiilka soddon iskugu timaadaan ka abtiga ama in abtiga ba ka xiga waa wax Soomaalida ku talaalan oo cudur Soomaalida ku talaalan oo Ilaahay inuu Soomaalida ka daweeyo loo baahan yahay waa fidnad way bilaabantaa laakiin fidnadu markay bilaabato siday ku dhamaato way adag tahay waan xasuustaa gobolada markaan madaxweyne ku xigeenaha Burcana 3 bilood baan joogay Ceergaabana 3 bilood iyadoo la isku leynayo waxay suuro gashay nasiib wanaag in dadka heshiisiyo nabad ay noqdaan maamul dawladeedna laga dhiso haddana maanta waa taa dhibaatada iska dhacday ilaahay waxaan ka baryaa inuu maantana ilaahay nabad ku soo dabaalo oo ay nabad noqdaan dalkeenna runtii uu inagu filan yahay horumarku maalinba in baa soconaysa maalin qura room lagu midhisin baa leeyahay waan socod doonaa waa la gaari doonaa horumarka haddii ilaahay yiraahdo waxaan idin kula talinayaa dhalinyaradiinaas inaad dalkiina u fikirtaan halkanaad leedihiin meel kale oo leedihiin ma jiro shalay markii xamar laga soo qaacay ninka soo gurigiisa u yimid back home ba ka dhacay laakiin nasiib wanaag wixii halka laga bilaabay ree awdal waxyaabo badan oo wanaagsan oo sameeyeen oo marmarka qaarkood ay iska dafiraan baa jira idinka bilaabay jaamacad idinka nabadii bilaabay dawladnimada idinka dhisay la idilma sheegan karo marti kuma tiidina si fiican wixii loo raadsada kaasana kula talinay waxa kaloon halkan ka hambalyeynaya dhalinyarada maanta ku guuleysatay aqoonta waxaan kaloon hambalyeynaya waalidiintii ku soo dadaashay wada jir waa in lagu wada shaqeeyaa haddii wax khaldan yihiin isku tilmaama eed ha iskaga dhigin oo ha isku eedeynina haddii la isku eedeeyo hebel baa hebel la yiraahdo waxba la gaari maayo marka waxaan idin kula talinayaa inaad kuwa isla taliya oo wanaagaas fara xumahna iska waaniyo inaad noqotaan sidii nabigeenu inagula dardaarmay ilaahayna quraankiisa inoogu